الله الرحمن الرحيم كنت وعن وحيسنا دمان بخيارتها ودا نغلا xirtay waxaadna ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan dood baarlamaanka Puntland oo ka yeeshay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya barnaamijku waxa uu idinka imanayaa xarunta Daljir ee magaalada Garowe idinkoo kala socda xarumaha kala duwan ee Daljir ay ku leedahay Soomaaliya وطبعاً بيشة تدرات سنة كعلبة كون يوشن يا طبعاً كبرنامج كنا أنا جو جمال فرحادنا يا إذن لسه عدسينا يا xarunta golaha wakiilada ee dawladda Puntland waxa wali ka soconaya kalfadhigii 16aad ee baarlamaanka Puntland kaasoo looga hadlayo arrimo badan oo quseeya Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo waayadan dambe khilaaf aad u sareeya oo soo kala dhaxgalay dawladda Puntland xukuumadahan dhowr jeer ayay arrimahan hore uga hadashay iyada oo dawladda federaalka ee Soomaaliya u soo jeedisay eedeymo badan oo ku saabsan dastuurka tumasho iyo waliba ku xadgudub dhinaca xuduudda Puntland haddaba doodan oo ah mid go'aankeed rasmiga ahi uu wali la jiro baarlamaanka Puntland ayaa qodobada sida weyn baarlamaanku uga dooday waxa ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo xubnaha baarlamaanku ay isku raacsan yihiin in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay jebisay ismaha maamul goboleedyada oo kii ugu dambeeyay ee dawladda federaalka ay ka dhistay degmada Cadaado oo shir uga socdo qaybo kamid ah dadka degan gobolada dhexe kaasoo dastuurka maamulkaas loo sameeyay xuduudiisa lagu daray qaybo kamid ah deegaanada Puntland kaasoo ah mid kamid ah arrimaha Puntland ay sida weyn uga carootay waxa kale oo dooda baarlamaanka Puntland lagaga hadlay gudiyada dhawaanaha xukuumadda Soomaaliya ay magacawday kuwaas oo ka mid yahay guddiga kala xadeynta xuduudaha maamul goboleedyada kaasoo dawladda Puntland si weyn uga soo horjeesatay ayna sheegtay in ay mamnuuc yihiin in xubno gudiyadaas ka tirsan ay ka soo degaan deegaanada Puntland waxa kale oo dooda lagu soo qaaday arrimaha waxbarashada sida shahaadada dugsiyada Puntland khayraadka iyo waliba arrimo kaleeto inkastoo doodu ay wali socoto go'aankeedana baarlamaanka laga dhowrayo maalmaha soo socda haddana xubnihii hadlay ayaa qaba fikirro aan sidaas u kala durugsanayn gaar ahaanna waxaa laga yeelayo xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka ah iyada oo qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanku ay qabaan in digniin kama dambaysa la siiyo dawladda Soomaaliya halka qaarna ay qabaan in xiriirka si rasmi ah loogu jaro haddaba waatan doodii baarlamaanka Puntland iyo waxyaabihii ay ku soo qaateen waxaan filayaa mawduucan nabari aan ka hadlaynaa inuu salka ku hayo ama uu xambaarsan yahay danta guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo wixii looga baahnaa waxaan run ahaantii muuqata waxyaabaha dhacdhacaya oo aan loo baahnay inay ina xusuusin doonaan halgankii dheeraa ee in la helo dawlad Soomaaliyeed bal sababteedu wax kasta ha ahaatee isla markaana laga baneeyo xamar meel laga xaadxaado oo cili fadhiisato oo dadka laga hago ama laga hogaamiyo ee kaga baxay dadka reer Puntland naf iyo maal ayaan markaa ina xasuusinayso waxyaabaha dhacdhacaya ee aan soran karo looma baahnayn maanta garaadka baa sheegay wuxuu yidhi haddii lagu sheegana waa lays sheegaa haddii lagu sheegana waa lays sheegaa waxaan xasuustaa 2000 bartamaheedii halkan warqad baa laga qoray loo qoray ninkii la oran jiray David Stephen oo markaa u qaabilsanaa jumcada qurumaha ka dhaxaysa arrimaha Soomaaliya warqadaas baa ugu horeysay meeshii wax laga bilaabay dhismaha Puntland ka soo kow
warqadaas baa loo qoray isaguna bulshadii uu soo idmatay buu gaarsiiyey warqadaa waxaa ku qoraa in indhaha caalamka Soomaaliya u soo jeestaan la qabto shirkaas oo lagu yeegleerayo dawlad loo marayo hoos ka dhis koronis markaa kadib baa mishinkii la soo diray halkan baa la yimi anlayskii baa la qaaday waa tii la qabtay shirka garaadka isrigiyo meesha la yidhaahdo maxaan ku radaa Jabuuti lagu qabtay 4 dal baa ku tartamay oo qolada tirada anaga marti gelinayna shirkaas warqadii labaad oo halkan laga qoray waxay ahayd kala bixintii Puntland la weydiiyey oo ay tiri Jabuuti halagu taasoo micnaheedu ahaa haddii magac lagu helayo iyo haddii maal lagu helayoba iyagaa Soomaaliya taariikhda soo socotada oo soo jireenka iyo wixii laga galay iyo shirkii beledweyne ee Soomaalida beeraheeda waaweyn qayb ka mid ku shirtay shirka kaalmadii laga geystay wixii laga ururiyey iyo shirarkii kale ee dawladihii maxaan ku radaa kumeelgaarka ee federaalka lagu habeynayay kuwii ugu dambeeyey hadda oo tan hadda joogta ay ku timi iyo wixii hawl iyo waqti la geliyey waxaa oo dhan waxay keenayaan inaynu dib u xusuusanno waxyaabaha dhacdhacaya u dhameysay laga gaaray taasoo micnaheedu ahaa in la helo ummad Soomaaliyeed oo marun magaceedina soo noqdo ruuxeeda la isku taagay ayaa hadafka British guud ahaa buuggan hadda halkan aynu ku soo ururinay oo ay ka mid yihiin heshiisyadu oo ay ka mid yihiin dastuurka iyo nifaaqyada la bedelay oo 24 qodob ka kooban wax lagu daray wax laga dhimay la laalay cabashooyin badan laga bixiyey bulshada caalamka loo sheegay in badan waxyaabo la kala qortay oo la heshiiyey wuxuu ka koobnaanayaa waxa weeye wax ka bedelida dastuurka oo fadhida jecsan iyo faragashigaas dastuurkii la isku ogaa isla markaana markii la saxeexayay waxaa la yidhi yaa damaanad qaadaya inaan la taataaban mahiiga yidhi oo markaa United Nationska u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya aniga damaanad qaadayo oo ilaalinayna haddaanu nahay sumcadda qurmaha ka dhacay sidaas uu saxeexa toddobaad ku galay oo uu ku yeeshay saxeexa toddobaad fulin la'aanta heshiisyada ay la gashay dowladda federaalka ee Puntland waa qodobka labaad oo ku xigay oo aan toortani wax tixgelina iyo wax maxaan ku radaa fulina aanay ka samayn sida aad wada ogtihiin ama ku cad dukumentiga aynu ku soo ururinay buuggan ina hor yaala qodobka saddexaadna waxa weeye tixgelin la'aanta deeqaha caalamka magaca Soomaaliyeed lagaga helayo oo aan waxba laga siin dawladda Puntland oo dhowr goorna laga hadlay laakiin aan dheg kala toosin taasoo aan ogtihiin caalam al-carab qarbi kuwa kale waxa lacag laga soo qaadayo weli wax ina ka soo gaaray oo aynu ognahay oo la sheego lagama hayo waxayna ahayd heshiisyada ka mid ah dastuurka kan ku cad meel kasta shir kasta oo isku yimaado ku cad in si siman deeqaha loo wadaago caalamka ama bulshada caalamka oo kale qodobka afraad wuxuu noqonayaa mushkilad kale oo jirta dadka badidii aan ka warqabin oo ah fududayn la'aanta arrimaha Puntland ay ku horumarin lahayd deegaamadeeda dhanka xiriirka bulshada caalamka sida maalgashiga la hortaagan dowladda federaalka ay meel walba warqad bay dhigtay baarista batroolka ama khayraadka way hortaagan tahay aqoonsiga shahaadada ee jaamacadaha banaanka ay ku tegayaan waa hortaagan tahay arrimahaasi waxaa ka mid yihiin qodobada aynu isku hayno oo dhib ku jiro qodobka shanaad waxaa jirta baahida wada shaqayneed ee labada dhinac oo ay iska diiday dowladda federaalka ay marka laga hadlayo arrimaha wada tashiga dowladnimo ee loo baahan yahay marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland oo aanay ka ogolayn dowladda federaalka inay xubna ka hesho
labada guddi oo had iyo jeer ala wada shiraya maadaama Somaliland ay si sharci darro ah ku haysato dhul Puntland ka tirsan samaynta guddiyada madaxa bannaan iyo shuruucdooda oo ay ahayd in laga wada tashado oo ay ka wada tashadaan ambareelaha sare ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah maxaan ku rahdaa dowladda taas way iska diideen oo dowladda inay xeerar samaysteen inaan ka warqabin waxay kaloo samaysteen guddiyaal madax bannaan oo kuwa xuduuduhu ku jira oo kuwa dhibka ka taagan tahay ku jira sidaa awgeed anigu mudanayaa waxaan soo jeedin lahaa in loo yeero madaxda hogaamisa golaha xukuumadda ama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lana weydiiyo riboort ku saabsan arrimaha kale sida meesha ay marayaan dabadeedna la qaato dood kadib go-aan dhaxal gala oo suurto geliya shantaa qodob oo aynu isku hayno in la helo waxaa isku awood ka dhigaya qodobka 73 qodobka 72 qodobkaas ku qoraya qodobka 73 wuxuu leeyahay guddoomiyaha iyo ku-xigeenada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa lagu doortaa sida lagu doorto khabraaca la mid ah kan lagu doorto aqalka golaha shacabka taasaa keenaysa waa isku mid weeye dhinaca kale ka istaagayna golahaas oo ay ahayd in la sameeyo oo la kala ilaasho oo dowladaha xubnaha ka ah dalka wakiil u ahaa ayaa marka koowaad meesha ka maqan hadduu meesha ka maqan yahayna waxaaba kulligiisa qalad ah in sidaadaba la yidhaahdo dowladdii waa dhammaystirantagaan ka wada hadalo wax la kala xadayn jiray oo la kala ilaalinaya kaluu ahaa mana samaysna ilaa la sameeyana qodobkaasu meeshu ka maqan yahay dayib marka la yidhaahdo qodobka 8aad ama qodobka hadda la yidhaahdo 48aad ama 81aad waxay caddaynayaan oo qeexaya in wixii sharci cusub ah ama sharci dejin ah oo uu soo saarayo golo ka mida golayaasha inuusan ansaxayn ilaa golaha kala la mariyo isla mar ahaantaasna waxaa golaha shacabka soo jeedin kara sharci cusub 10 xubnood baa sideedaba golaha soo jeedin kara sharci golaha kale oo aqalka sarena waxaa soo jeedin kara 1 xubin aqalkaa u fiirsada awoodaha sida la isugu dheelitiray maadaama ay ka badan yihiin midna waxaa soo jeedin kara 1 xubin midna waxaa soo jeedin kara 10 xubnood waa garta marka laga hadlayo xuduudaha oo hadda arrinta hadda xuduudaha oo aynu ka hadlayno oo ay ka hadlayeen hadda ragga gaarkii bal haddaan qodobkaan idii akriyo qodobka 49aad bilqadkiisa afraad tirada waa dowladeedyada dowladda wakiil ka noqonaya waa qodobka afraad oo qodobka 49 bilqadda afraad tirada iyo xuduudaha degmooyinka dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka waxaa goynaya sharci uu soo saaro baarlamaanka dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka golaha shacabka ee federaalkuna ogolaado marka ay soo saaraan aqalka sare ayaa waxaa xuduudaha waxaa soo saaraya waxaa ogolaanaya golaha shacabka sidaa darteed mar haddii aqalkii sareba usan jirin see xuduuda loogu diri karaa maba ku yaallin meesha waxaa diri kara oo soo qoontaynaya waa aqalka sare waxaana ogolaanaya waa golaha shacabka oo loo diraya marka ma golihii shacabka oo loo keeni lahaa oo ogolaan lahaa baa ayagu diraya kii kaloo aan jirin aqalay mariyaana male taa waxay idiin muujinaysaa waxaad filaysa asaxahay inay tahay gacankuridis iyo anaa samaystay oo meeshii jooga qodobkaa waa halkaa qodobka labaad adduunka waxaa haga taariikhta dacdada hagta waxa soo socdaa ma hagaan wixii tahay wixii looga faa'iidaysto baa taariikhku sheegtaa
iyadana naasaha laga yeeshaa laakiin waxa soo socda waxa taagan waxa looga hadlayo waa wixii tagay lagu sameeyo weeye dowladda federaalka ah mar haddii rugniyadii ay ku taagnayd ay kala dhiman yihiin fikirkayga caduweyne ilaa ay soo dhamaystiranto oo wixii la kala ilaalinayay oo xuduudahayo inoo dhexeeya ay dhamaystirmaan in aynan wada socon karin ee dib loogu laabto oo looga istraatiijiyeenna qorshaheena dababaagtaalkeena dambe uu ku salaysnaado wax soomaali dalo gudoomiye ku-xigeenka xubnaha baarlamaanka shaqaalaha baarlamaanka saxaafadda iyo marti sharafta la-aad baan u salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudane guddoomiye mudanayaal waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa oo run ahaantii si fiican oo aada u faahfaahiyey si fiicanna u lafaguray raggii iga horreeyey aada baan ugu raacsanahay fikradda sida ka muuqata dastuurka lagu heshiiyey waa la majara habaabiyey waddadiisiina waa laga leexiyey taasi waa cadda ciddii uu ka dhexayn jirayna hadda wax tala ah oo dadkii qaybta ka ahaa wax tale ay ku leeyihiinna ma jiraan taasina waxay keenaysaa in maadaama dadkii talada ku lahaa ee wax ku lahaa meel kasta oo wax kastoo la qabanayo talada ku lahaa aanay ku jirin inaanay saamayn badan ku yeelanayn meel uu gelayana aan la garanayn sidii ninkii yidhi buunka laga qaatay oo iyo hagee lagu yeerinaya iyagaa garanaya meelahan waxyaalaha ay soo saareen meelahay geyn lahaayeen taasi waa ta sidaad la socotaan dastuurka dawladda federaalka ah iyo dawladda federaalka ah puntland iyadaa hormuud ahayd la-aanteedna ma jirteen sidii asxaabtayda iga horreeyey ay sheegeen iyadaa usoo dhabaradaystay hawlo badan dhaqaalo ku bixisay ruux walbaalba ku bixisay ilaa iyo maantana hortaagnayd inaanay kusii socon dawladda federaalka iyo mas-uuliyiintoodu khaladaadkii ay horey u galeen khaladaadka ay weli ku jiraan ay ku taagan yihiin aada bay u difaacday markaa maadaama ay difaacday waxaad moodaa inay dawladda puntland iyo dadkeeduba ay dhabaradaygoodii iyo sabirkii uu ka soo dhammaanay dawladdiina ay sii wado khaladaadkii ay horey ugu jirtay oo ay gacan bidixaynayso marka taasi waxay sababaysaa dulqaadkii badnaa inuu ka lumo dawladda puntland marka laba arrimood baan in la isweydiinaya dhowr arrimood baa in la isweydiiyo ko oo ayna isweydiino dib ugu noqono malihi xiriirka ha loo jaro sidii la yeeli jiray laakiin anigu waxaan taaganahay gebi ahaanba in go-aankama dambaysa laga gaaro guddiyana loo saaro arrintaas lianna waxa weya waxani waa wax iska sii jiitaba wax xataa inaad jirtid inaad dad jira tahay wax kule aan xataa maxay tahay aan la qiimeynayo ma oranayo digniinkama dambaysa ha loo diro mana oranayo xiriirka ha loo jiro laakiin anigu waxaan leeyahay si kama dambaysa go-aan kama dambaysa ha laga qaato arrintaa dawladda federaalka anigu aragtidayda waxay tahay haddaba haddii dhagaha laga furaystay cabashooyinka ay qabeen dadka puntland haddii aanay joogsanayn khaladaadka iyo ku-tagrifalka laga gelayo wixii lagu heshiiyey hadday ku socdaan inay jabiyaan qodobo dastuuri ah hadday caadaysteen inay khalkhal geliyaan dawladaha goboleedyada qaarkood qaybna ay u ansixiyaan dad iyo dhul aanay lahayn sida ta ka dhacday cadaado o aanaan inagu aqoonsanayn haddaan puntland nahay waxay wax laga soo girgiriyey laga soo baalkeeyey muqdisho laga soo waday aanna waxyaalaha dastuur jabinta ka mid a haddii aanay jirin waxay naga dhexeeya oo la tixgelinaya waayo soomaalida waxay tidhaahdaa marka ceelal iyo heshiiso baa xoola biyo cabaan mini wixii naga dhexeeyey oo aan ka wada hadli lahayn ma jiraan wax laynaga weydiinaya ma jiraan anigu sidaan hore sheegay marka waxaan qabaa in gebi ahaanba go-aan laga gaaro
kabsi mid ahaanshaha dawladda federaalka maadaama aanay wax dan u hayn puntland bal ay dibindaabyo toosa iyo cadaadis ku hayso puntland iyo meelo kaleba sidaa laagtay waxaa qabaa in guddi loo saaro nin baa gebi wuxuu rag kaa faqay rafiiq nibatiin tana lagaa reebay meeshaan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco waxaan leeyahay hadda kusoo gabaynaynayaa puntland calaacaliyo way puntland ay calaacaliyo way cilmo biyaan asalaamu calaykum waraxmatullah barakatu اللواء تعزيز محمود waxay bismillah mudaya waxaan codsanaynaa doortaa socota inayna wada qaadaya waxa fiican in soo mudanaha markuu goodiisa jeedinayo nuxurka inuu kala bixintiisii uu kusoo gabagabeeyo si minadku u noqdo waxa kasoo baxdo waxa marka kale waa in oo saxiyad yeesha oo wax ka noqdo waxaan doonayna bixinta wax ka laakiin hadduu markuu sadooda waxba kusoo gabagabeeyo waxa weeye si loo qaado iyo gabagabada yeelanay waxaan ka codsanayaa mudanayaasha markay doonayaan oo doodooda dhamaynayaan ama qof ha safangareeyaan oo ra'yigiisa ku safangareeyaan ama iyaguna marka taabanooda gabagabaa yani nooca kusoo gabagabeeyaan dooda si uu minadku uu macno u yeesho waxa isu burburin karo waxa looga saari karaa masad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أنا وضعت مترين كرهبة دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaa dee saaka laga hadlayaa qodobada isaga tahay dastuurka iyo federaalka siyaasaddaas waxaan aada ugu qanacsanahay rag badan oo xildhibaanaha iga horreeyey inay aada u faahfaahiyeen ama xoogaa ha ahaadeen ama dee aqoontooda ha siiso aada bay u mahadsan yihiin laakiin qof kastoo bini aadana ra'yiguu leeyahay anigu waxaan qabaa meesha dhibtu ka taagan tahay inaan la taaban laakiin bal waxaan ku leeyahay waa aniga ra'yigayga wey ma aha mid guud inaan sheego hadduu ilaahay idmo soomaaliya 1991dii waxaa ka dhacay dagaal waxaa ku dhacay burbur nin kasta wuxuu tegey oo u cararay tuuladii uu deganaa oo asalkiisu ka soo jeeday meeshay doonto ha ahaatee dagaalka waxaa dhibbane ka ahaa dadka ku abtirsada puntland baa aada dhibbano uga ahaa hadday naf noqoto hadday maal noqoto hadday wax kasta noqoto iyagoon dadkii wax garah iyo wax dacwada aan loo qaadin oo aan la odhan wariya dagaalkii dhibbano ka ahaa ayay puntland dadkeedu waxay go-aansadeen intay wax cadfiyaan in dowladda federaala soomaaliya ay samaysato bay go-aansadeen waa arrin aada iyo aada qaali u ah oo fiican oo cafallahu camaa salafka baa la yidhi waxa weeye arrin qaaliay ahayd moogta waxaa marka habboon qofka bini aadanka ah oo walaalka ah oo adigu adoo dhibanaha aada cafiyeyso inuu kula garto waxa aad ka cafiyeyso iyo waxa aada doonayso inuu kula gartaa aada muhiim u ah waxaa moodaa walaalaheena xaggaa jooga fikirka reer puntland garasho ka hooseysa inay ku fakereen waayo puntland waxay danaynaysay soomaali weyn inay isu timaado isuna keento oo halkaas wixii dhacay aan la sii fiirin waayo maamaha soomaaliya waxay odhanaysaa isxasuustaa isma xabaalo haddaan idhahdo walaalkay shalay uduu ii geystay walaalnimadii iyo inaan wax noqnona aan doonayo laakiin wixii igu dhacay aan xasuusto weligay wax horumara ma gaarayno horta dhibaatada ugu weyn oo taalla waa taas qof dowladnimo doonaya oo dhib kasta oo gaartay inuu dowlad ka helo doonayo iyo qof doonaya burburka in lagu jiro oo aan dowladi meesha ka dhalan siday wax isugu keenaan waa adagta wax fudud baan u arkaa arrimaha laga hadlayo oo la leeyahay qodob hebel baa la jebiyey qodob hebel baa la jebiyey waa fududahay markii loo eego 1991 wixii dhacay iyo waxa inagu aynu doonayno iyo walaalaheen waxay doonayaan aad bay u kala fogtahay qodobadaan kulli waa mayna waa wax lagu heshiiyey soomaalinima ayna ka dhexeeyey soomaalinimadii lama ogolo waqti
wartaas waxaa fiican inaynu madaxa ku haynaa fiican intaa waxaa igu weheliyaa puntland haddii xataa xubnimada la raadinayo soomaaliya dadku ku nasab sheegta ama ku abtirsada meeshay kaga jireen waa la ogaa haddii haddeer dawlad kumeel gaara iyo wax la sameeyeyna filla soomaaliya inay fadhiisato dawladda federaalkani waxaa hawoodu ahaa nin reer puntland allah u naxariistay cabdilaahi maxamed buu ahaa dawlado badan baa ka horreeya kulli guryaha loo kareynayay taas waxay keenaysaa qofku niyadda uu ku duulayo inuu intuu go-aan ku qaato go-aanka uu fuliyo waxaan odhan karaa intii ka horreysay dawladnimo dhab kama ahayn laakiin ninkaan reer puntland hadda dhintay allah u naxariistay dawladnimo dhab bay ka ahayd marka qofku waxa uu ka shaqaynayaa duusan daacad ka ahayn mina kama gaari karo dhowr jeer baynu isu noqnoqonnay innaga iyo federaalku oo aynu ballamo galnay noogta ballamihii ma garan kara wax laga fuliyo kulli waa laga baxay waxaa ugu dambeysay tii hadda madaxweyne xasan sheekh oo halkaan intuu heshiiskan ula galay saxiixay markuu xamar taginayay puntland heshiisa lamaana gelin waa midda ugu weyn weeyey inta kale waxa ka soo qaadaa dee wax isaga ka hooseeya laakiin waxay soomaalidu tiraahdaa madax meel ka sarreeya oo la salaaxaa ma jirto haddii madaxweynihii intuu heshiisku horgalay markuu xamar tegay uu yidhi heshiiskaas anigu ma gelin iyadana waxaan qabaa inaynu ku filan tahay qodobo kalena inaan raaraadino ma loo baahna oo balamiyo hore oo laga baxay waxaa kaloo iyaduna jirta ayaamaha kan in aada loo xamaasadaynayo oo loo wadwado waxa cadaada ka socda oo iyaduna qayr caadiga ama sharciga ahayn maayo federaal waxaa la yidhi laba qodob iyo wixii ka badan mudug iyo galguduud bay yidhaahdeen mudug haddii la eegana waxa weeye waa barna puntland baa leh xaqiiqadu siday tahay bar wax ka yarna iyagaa leh markaan leeyahay wax ka yar ma rabo xaquuq qof bini aadana uu leeyahay inaan dafiro la dawladi sababtoo ah gaalkacya caasimada kobyo iyo xaggaarada iyagaa leh puntlandna waxay leedahay godob iyo jariiban wax marka haddaan gaalkacya caasimada dawlado wax ka yar baa rabaa inay ii macnayo anigu gaalkacyaan ku dhashay intaan kula ekaaday waxa ku soo barta gaalkacya waa 4 xaafadood xaafad yidhaahdo garsoor israac horumar iyo wadajir saddexda xaafadood waxaa degan reer puntland wada ya waa soo wadaya daalkan awti meesho wax barka yartii baan anugu macnaynaya wadajirna waxaa weeye waa lala degaya iyaga u badan laakiin waa lala degaya laakiin ha u badnaadeena hantida ugu fiican dada kana kule winkii gaalkacyadoo rasmiya waa yaqaaniin hantida ugu fiican ama salaxda adeeda ama kulli dada kana kule meesha la leeyahay gaalkacya dadka dhexaysa gaalkacyo waxay ka degan yihiin waa intaa waa ramadaan waa soomana inaad meesha in kula jeedo jiro ama qofkii aadaada boodsiiyo waxaa laga yaabaa marka dadka yidhaahdaa waa gobol iyo bar maahane waa gobol iyo rubur weeye 2 iyo 2 iyo xaafad barkeed marka ay leeyihiin absolute waa sidaa iyaduna waa sharci gafo oo ma ahan wax puntland ay raali ka noqon karto markay ninka intaas dhihi uu yidhaahdo burtina caasimadii ah minsalka waxaa idiin soo baxaysa 1991kii aan ka soo hadlay wixii tagnaa inay yimaadaan baa soo baxaysa taasina wax mataqaanaa la qaadan kara ma aha annaga afkeennu ma odhan karo darciyana looma siin karo xareeriya hubiya annagaa lagoo tegay nin baa maalada weyta ka hadlay nabadoona oo reer xaasisho ah waxaan u malaynayaa waxaa yaqaanaa maxamed deere caydiiriya aloogaa la yidhaahdaa waa nabadoonada waaweyn oo reer koonfurta weeye waa gaalkacyo maxamed deere si fiican u yaqaana waa khalad buu yidhi in galmudug ay bootino sheegato macnaha arrin waaqiciya buu ka hadlay ninkaas waa qalad wixii 91 yaa la soo celiyey ummadda ilaahay yahay muslimin qod caadila lagama waayi karo taasna waxaan ka leeyahay taa waxaan hadaayay maqlayay guddiyaal la qaybiyey oo shuqul kuma lihin oo waxaasoo war in soomaaliyaysan tobayan qoleen guddiga ay qaybiyeen annaga maxaa naga galay wax naga galay ma jirto labadan guddiyo la sheegaya waxa waa inaan dhahnaa ma soo geli karaan puntland waayo marka soomaalidu ma rabo marka waxay iyagu dhisanayaan iyagaa istay waxna ina kama gelin annaga taas waxa weeye waa taas
waxaa kale oo jira dastuurka waxaa yidhahdaa waxbaa laga bedelay waxbaa laga bedelay midda ugu muhiimsan oo laga bedelay waa caasimadda wadahadal baa ka furnaa waxay ahayd in caasimadda go-aan laga gaaro waayo meesha dadka lagu laayay oo lagu dhacay caasimadda meel shalay laygu dilay oo laygu dhacay haddii aanan qancin inay ii noqoto caasimad ma ahaso aayad qur-aana oo soo degtay oo oranaysa xamar baa caasimad ku ahna ma jirto waxaan la bedelin waa aayaadka ilaahay oo munasarka oo samada ka soo degay baan la bedelin wax kasta waa la bedeli karaa anigu waxaan qabaa inaynu ku darno hadalkeena caasimadda xamar inaynu iska weydiiso dowladda ma arka waan qabaa caasimadda xamar inaynu iska weydiiso waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo qaalihiga ahaada aad baa umahadsantihiin had iyo jeer puntland intay cabato ee waxay tiraahdaa xiriirkii baan u jirnay waa ka goosanay xaggaan samaynay haddana si fudud baa la arkaa iyadoo xamar loogu gurgurayo qoraha xukuumaddu ha u badnaadeen runta la isu sheegaa keenay waayo waxa aad ka cabatay adigoo oo aan helin badiilkeedii inaad si fudud u tagto haddana waa kale waxaa fiican bini aadamku hadduu mawqif qaato mawqifkiisa inuu ka masqariyaba fiican oo uusan mataqaanaa isagoo wixii natiijo ka gaadin si fudud nin mursid baan oran karaa dad waxay u hatay oo ku yimid oo intuu ballan kula galay balasha loogu xagga tagi ka baxay inuu intuu soo waca si fudud ugu tagto waa qiimo daro puntland qiimaheeda ha fiiriso hana isfiiriso anigu waxaan qabaa dastuur baynu leenahay isagaynu ku dhaqanaa waxaa deexaya puntlandka dashigeeda qodobka afraad xildhibaanada waa wada yaqaaniin reer puntland waa wada yaqaaniin anigu waxaan qabaa qodobka afraad ee dastuurka puntland arrinta ku qoran in lagu timaado qofku inuu wixiisa cadaystaa fiican haddaan soomaalinimo la ogolayn haddaan intaa ku rafaadayay haddaan awal hore ugu dhibanaa wixii dhacay oo dib maxkamadda u qaadiciyin jir laakiin anigu aan tanaasul sameeyey anuu soomaalinimo raadinaya haddii laiga garan waayey arsabuki waxaan usii fiirsado oo aan u yidhaahdo fadlan ma jirto ayad oraana soo degtay ma caasimadan aanu iska weydiino waayo xaq baanu u leenahay meeshii shalay laygu dulmay maanta anigoo aan wixii laygu dulmay wax badiila aan ka hadin inaan kusii ordo waxaana qabaa annaga iyo nimankaas inaynu kala joognaa oo lagu ducayno inay ilahay uu qulubtooda kusoo rido soomaalinimo inay helaan nacab iyo biri iyo saasaka digaaru leeyahaa anigu waxaan qabaa qodobka afraada ina guri waxay la tahay hadal weyne inuusan harin raggii ugu horreeyey baa dastuurku wixii uu ka qabo waxa aanu ka hadlayna si fiican uga hadlay qodobada uga hadlay aada ula socday oo in badan ka qayb galay doodiisa dastuurka markii muqdisho iyo halakan intaba marka wax weyn oo looga noqonayaa ma jirto wixii qof yirin halakan celcelinteeda meesha ma taalo waxaan keliya oo ku kabi lahaa dadkii hadlay xildhibaanadii sharafta lahaa oo hadlay wax alla waxa ay ku hadleen halakan waa la qabaa waa ayidaynaa waa taageeraynaa waxaan keliya halakan aan rabaa inaan ka xuso puntland ku doodi mayso waxaan caddayn puntland ku doodi mayso waxaan markhaati lahayn puntland ku doodi mayso waxaan qorayn sidaas darteed waxaan rabaa halka inaan ka xuso mar haddii qodobadii dastuuriga ahaa laga soo wada hadlay heshiisyadii la galay iyo puntland iyo federaalku ay wada galeen oo ay wada saxiixeen oo la isku raacay oo raadka iyo saldhigga ahaa inaan halakan ka xuso waxaa taas ka weyn oo ka horreeyey dastuurka laftigiisa in horay looga wada xaajooday loo wada qoray qorsho looga samaystay xeer loo dejiyey loo dhammaa intaas iyadoo jirto ayaa haddana heshiisye la galay heshiisyahaasna markasta waxaa kalifahayey dhinaca federaalka oo ka baxayey wixii lagu heshiiyey iyaga oo aan la tashan ka qaybgelinin sida dastuurku uu qorahayo wixii loo baahan yahay in wax laga taataabto marka waxaan taabanayaa oo keliya hadda waxaa weeye waa qodobadii wixii la gaaray meelaha ugu muhiimsan
puntland saa ogsoon tihiin waxaa yimi halakan waxaa yimid bishii markay ahayd maarso 11 waxaa yimid 2013 waxaa yimid mudane ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka ah cabdi faarax shirdoon markaas madaxweyne cabdiraxmaan maxamed faroole ayaa madaxweyne ahaa heshiisyadii la galay oo la kala saxiixday waxaa ka mid ahaa in la dhaqan geliyo dhammaan heshiisyadii dhex maray puntland iyo dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya wixii aan ka hor imaanaynin dastuurka ilaalinta iyo ku dhaqanka dastuurka federaalka in la joojiyo lagana hortago wax kasta oo wax u dhibi karaa xiriirka iyo wada shaqaynta labada dhinac wixii tabasho ahna laga wada xaajoodo oo laga wada hadlo oo aan qoro say doonta aysa ka yihiin taas waxay caddaynaysaa halkaas heshiis cad oo dowladda federaalka ah mas-uuliyaddeedii ugu sarreysay ee guddiga fulinta golaha fulinta heshiiskii ay galeen oo dowladdana wakiilka ka ahaa oo madaxda ka ahaa heshiiskii puntland uu la galay ayay caddaynaysaa taasna waxaa ku qancay dowladda federaalka ah laftigeeda oo wax ay ka bedeshay ma jirin ma ay diidin way ogolaan waxaa jiray 14 octoobar 20 sanadka 2014 magaalada garoowe waxaa yimi waftigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka soomaaliya arrimihii laga wada hadlay waktigaas waxaa ka mid ahaa oo khuseeye arrimo aan ka hadlayno dhismaha dowladaha xubnaha ka noqonaya dowladda federaalka dhismaha dowladda federaalka dowladaha kamid noqonaya dowladda federaalka ah waa inuu ku salaysan yahay sida ku cad dastuurka oo uu qabo baa iyaduna qoraysa waa qodobka saddexaad qodobka koobaad faqradiisa labaad weeye tiisa labaad waxay leedahay marka dowladda federaalka iyo dowladaha puntland waxay isla qaateen in maamulka ku-meel gaarka ah ee gobolada dhexe ee ay hogaaminayso dowladda federaalku jeceshahay in la dhiso inuu ka kooban yahay galgaduud iyo koonfurta mudug waa isla qaateen labada dowladeed sida ay ogsoon tihiinna madaxweynaha dowladda federaalka awoodihiisa oo 18 ah dastuurku siduu qorayo meel keliya oo ay kaga caddahay ma jirto 18 kaad awood siinaysaa ma jirto dowlad goboleed ama maamul midna isagu inuu caasimad u magacaabo isagu inuu guddiyo u dhiso isagu inuu xeer u dejiyo meel ay kaga caddahay awoodihiisa ma jirto marka wuxuu ku gafay madaxweynaha dowladda federaalku mudane xasan dastuurka u qoran dowladda federaalka haddii dastuurka uu ninka mas-uulkii u gafana haddee waajibka laga qaadayo waa waxa iska cadoo dastuurka qorahaya qodobka labaad wuxuu qorahayaa heshiisyadii hore loo galay in la fuliyo labada dhinac waxay isla qaateen oo isla ogolaadeen in heshiiska hore loo wada galay dowladda federaalka iyo dowladda puntland ay galeen inay yihiin heshiisyo ay waajib tahay in la fuliyo iyadoo uu saldhig u yahay heshiiskii ugu dambeeyey ee ay wada saxiixdeen dowladda puntland iyo xukuumaddii ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon faqradda labaad oo halkaas waxay leedahay maadaama heshiisyadii horey ay u hergeli waayeen waxaa lagu heshiiyey hadda in fulinta iyo dabagalka heshiisyadii hore iyo heshiiskan loo xilsaaro guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda puntland ayna ka wada qayb qaataan hay-adaha ay khusayso ee labada dhinac dhammaan waxaad arkaysaan waxaa oo dhan wax dowladda federaalku ay ka tixgelisay ama ay maxaanku ihahdaa ama ay ilaalisay midna ma jirto haba yaraatay hadalkayga haddaata waxaan ku bilaabay puntland ku doodi mayso waxaan caddayn waxaan qorayn waxaan markhaati lahayn
midna ku doodi mayso arrinta aan ka hadlahayo hadda markhaati waxaa u ah waxaa halka saxiixay oo saxiixiisii ku cad yahay cabdiweli sheekh axmed cabdiweli sheekh axmed maxamed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha dowladda puntland labadooda kadib waxaa goobjoog ka ahaa oo markhaatiyaal ka wada noqday waa kuwaasa waana dee akriyi doona intaa oo markhaati ah oo goobjoog ah ayaa ka qayb gashay heshiiskaa markii la saxiixay heshiiskaas dadka saxiixay waxaa weeye heshiiskaas waxaa saxiixay mahad cabdille cawad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya siciid xasan shire guddoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland ambasador mahiga key wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas key raalli ahaada ambasador nicholas key wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya ambasador maxamed cabdi afi wakiilka gaarka ah ee urur goboleedka igaad u qaabilsan soomaaliya ambasador michael carbon durso wakiilka gaarka ah ee midowda yurub u qaabilsan soomaaliya ambasador wendimu asamniw safiirka etoobiya u fadhiya soomaaliya iyo guddoonka iga halkaas waxaa markhaati ka ah hadalkii ugu horreeyey oo aan ku furay puntland ku doodi mayso waxaan caddayn puntland ku doodi mayso waxaan markhaati lahayn puntland ku doodi mayso waxaan qorayn baa idiin caddaatay adduunkuna ha arko federaalkuna ha ku waaberiisto wax aan wixii lagu heshiiyey ahayn oona marayaa ma jirto meel kastaa nala gaarto haba yaraatee dawladda puntland oo isku raran oo iyo shacabkeeda hogaaminaysa isku raran waxaan ka wadaa u dhan oo shacabkeeda hogaaminaysaana mawqifka aanu hore u istaagnayna kaasuu ahaa insha allahu waxaan ka qaadan doonaa oo waajib ah mawqif midaysan inaanu ka qaadan doono haddii alla yidhaahdo arrimaha kaleeto oo la dhisahayo oo dawladaha maxaanku idhaahdaa maamulada loo dhisahayo oo lagu sheegahayo dawlad goboleedyo lagu sheegahayo dastuurkaa qoraya dastuurku wuxuu qorayaa faqradiisa 49aad qodobkiisa 49aad faqradiisa 6aad baa qeexaysa oo leh laba gobol iyo wixii ka badan ayaa dawlad goboleed noqonaysa meel laga dhaqaaqi karaa ma jirto wax bedeli karaan ma jiraan xasan sheekh iyo ciddii la halmaashaana ma bedeli karaan mana yeelayno waxaan dastuurka ku caddayn oo aan soomaaliya dan u ahayn midda labaad puntland cidna daandaansan mayso puntland weli lama sheegin meel ay ku duushay intii ay dhisantay iyo ka hor midna jeer iyada wax loo dhigo meel ay ku duushay ma jirto cida daandaansatay ma jirto dadka waalaha oo darisyada ah oo la rabo dagaalka in laga oogo oo loo jeheeyey inaan qalaaso waddan ka bixin si looga gudbo 2016 puntland arrintaas iyada way ka bisishahay waxaa loo baahan yahay dhinaca kale oo walaalaha la yahay oo dariska la yahay in ayaguna ka bislaadaan midda labaad annagu tuulo hadday noqoto oo maamul dhisato waa ku faraxsannaha maxaa yeelay kala dambayn bay yeelanaysaa amni bay yeelanaysaa irid laga galo bay yeelanaysaa taa waa caadi qofku maamul waa yeelan karaan tuulo waa yeelan kadhaa gobol waa yeelan kadhaa waxaanse ahayn dastuurku wuxuu qorayo puntland yeeli mayso haddayna u kalaftana go-aanka puntland wadajir buu usoo bixi doonaa insha allahu tacala asalaamu calaykum bacdisalaam waxaan rabaa inaan ereyo ka idhaahdo arrinkan maanta hadda lagaga hadlayo ah arrimaha dowladda federaalka iyo puntland marka hore waxaan oranaya waxa qodob iyo dastuur iyo xeer la jabiyey lagaga hadlaa ama loo soo qaataa haddii dadku marka horeba ay waafaqsan yihiin xeerkii iyo qodobada la dhigtay ama dastuurka ay taageersan yihiin laakiin haddii marka horeba la rifay oo la tuuray oo qodobadii dastuurka la dhex galay oo ilaa intaas oo qodob la tuuray oo qayb la laalay oo qayb la dhaqaniyey wixii loo sheego qodobkaasa lagu gefi yihahdaa wuxuu noqonaya waxba kama jiraan buu noqonaya yani macno ma keenayo in qofkaasi qodobkaas ku gefi yihahdo dadku waagii hore waxaan
waxaa laga ballami jiray ballan afkada la iska yiri baa la tixgelin jiray oo diintuna ay wax ka tiri in la oofiyo awfuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uulan qofku hadduu ballan galo waxa fiican ballanka ugala oofiyo ayadoo aanba qoraal aqorin haddeerna waxaan arkaynaa dastuurkii oo 7 saxiix leh oo la adkeeyey oo yaama taagan la yidhi oo ilaa intaasoo qood laga baxay oo la tuuray oo wixii umadi ka ballantay oo ka heshiisay oo wax lagu heshiiyey saasaynu qaabkaasaynu dawladda ugu wada dhaqannaa qaabkaasaynu dawladda u wada dhisanaa qaabkaasaynu u kala dawaynaa qaabkaasaynu shacabkeenna xeer aynu ku dhaqanno oo ummaddeena kala haga dastuurkaasa ama xeerkaasa la yiri baa waxaad arkaysaa in madaxdii dalku ay dhex gashay ay xaday ay qayb tuurtay ay iyadoo bulshadii ay madaxda u ahayd qayb u daranaysa qaybna xaqiraysa ama qayb arkiraysa mar hadday halkaa taagan tahay waxay anugu ummadda soomaaliyeed oo ilaa koonfur ilaa puntland la wada degan anugu ma qabo shacabkeeda waxaa ka horayaan laakiin dadka siyaasiyiinta way ahayd in la helo qof siyaasi ah oo iimaan fiican leh oo diinta wax ka yaqaan oo wixii lagu ballamay fulinaya oo eegaya waxa saxiixu kale isagu eegayo dib u eegaya ay ahayd inuu qofkaasu hoggaan noocaasa noqo nadiifa noqdo wixii isagu qalday anuu hadda shacabka soomaaliyeed oo masaakiintaayo anuu hadda usoo qaadan mayno ku eedayn mayno oran mayno nimankaasu heshiis ma ogolay waxaasmida oran mayno laakiin waxaan leeyahay markii hore waxay ahayd in qofka hogaamiyaha noqonaya uu yahay qof maanta ummadda soomaaliyeed meesha kala taagan tahay og ummadda soomaaliyeed intii ku dhacday 20 sano ka hor intii dhibaato soo gaadhay nin garanaya oo wax daaweyn karaya oo wixii lagu heshiiyey inay socdaan ama yacni ay ummadaas xeerkaas kala hago danaynaya qof noocaasa inuu hoggaan waayo ma kor ku ficnay laakiin ma dhicin oo hadda waxaa laga qayninayo baa dhacday xukuumadda fuuxeedu 3 sano ilaa hadda intii ay waxaasu dhacayeen naguma soo celino waxaasaa dhacay waxaasaa qaldamay waxaasaa wixii lagu heshiiyey oo qodobo ahaa waxaana ka hirgalay waxaana waa la diiday weli kama maqan marmar dhibna adeecadaha ka maqayni hadda waxaan leeyahay marka anu aragtayda horta puntland inay ku daasho wax loo wada og yahay oo adduunka og yahay inay soomaaliyada isu keentay ay ku soo dagaalantay ay meel geedeeda geelgaaloo kordhay ay wax badan danteedii iyo mustaqbalkeedii u baabiisay oo soomaali doonaysa wax kastoo maaha waxa loo yahay weye wax hadda inaan ka hadalno ku daalana doonayna maaha laakiin ninbaa beer beerta ama miro khalaad loo subxaana miro macaan waxaan ku leeyahay dawladda federaalka hadda jirta miro khalaad bay noqotay oo innaga yani beerna bay noqotay mar haddii dastuurkii la wada saxiixday oo lagu heshiiyey oo 7 nin wada saxiixday oo aada looga taxasiray loo gacan dhaafay oo hadda baa laga xaday mar haddii ay golaha wakiilada ahaa ayagu qaban waayeen waxay naga daaya oran waayeen mar haddii madaxweynihii sharci ilaalinta loogu talagalay isaga uu saa u geliyo oo wax qasay waxaa puntland ku khasban tahay inay go-aan qaato go-aanka marka puntland ay qaadanaysa anugu haddee oran mayo waxaa sidaas hala yeelo laakiin waxay noqonaysaa waxay la tahay inay noqonaysa in laga wada tashado inay noqoto inay noqoto oo laakiin qorshuul noqon yahay qorshuul ku qasban yahay haddii waxaa qasataa waa qasban baa lii inta qasankana waa qasamay in hadda shacabkeedu dawladda kulli laga wada tashado insha allahu maanta khamiis weeye number aada fara badan oo xildhibaanabaa qoran oo u baahan inay wakti fiican helaan iyo xilli loo baahan yahay in doodooda la fahmo waxay ka hadlayaan cidda haatan diyaargarowgooda weli la maqano waa imanka waa la sugaya insha allahu maanta maadaama ay khamiis tahay halkaasaan ku joojinayna haddii aan laydno xildhibaanada harsan iyo qolyaha aan weli isqorinbana haddii aan laydno sabtida
yay bilaabi doonaan aada iyo aad waxaan uga mahad celinayaa xildhibaanadii ra'yigooda ka cabiray sida cilmiyeysan oo aqoontu ka muuqato iyo deganaanshuhu haddii canaani jirto marmarna haddee uun nin haddee geeliisii raadinayo oo raba inuu soo xerayo waxbaa ka ororanaya canaana aada iyo aad bay doodu u fiican tahay ilaahaydankii si wanaagsan bayna ku dhammaan doontaa oo ummadda shacabka puntland iyo ummadda soomaaliyeedba qancin doonta si sharcigana ku qotonto haddii alla idmo sidii bootaan sheegana arrin wanaagsan weeye puntland waa la ogyahay waxay ka doodaysaa wixii waa wax la ogyahay waa wax duuban oo qoran oo saxiixan insha allahu maanta halkaasaan ku daynaynaa shirkuna waa xihan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa inoo sabtida qolada meediina aad bay mahadsan yihiin haddaba sida aad ka maqlaysaana dooda golaha wakiilada dhowaan ayaa la filayaa in baarlamaanku uu soo saaro natiijada doodooda iyada oo